nabad galiyo xeerka jinsiga ee dooda dhaliyay iyo mashruuca kufsiga ee Muqdisho maxaa ka dhaxeeya maxaa sababay labadii maalinba mar in loo geysto kufsi gabar Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed yaa lacag ku soo qaatay kufsiga aan kala saarin rag iyo dumar ee Soomaaliya ka dhacaya muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa mashruuca kufsiga ee Soomaaliya balse marka hore laagsar muuqaalkan oo la wadaag saaxiibadaada si fariinteena ay u gaarto bulshada Soomaaliyeed dunida meel walba ay kaga nool yihiin kufsigu waa dambi ay waajib tahay in lagu mutaqaab adag oo laga hortago laakiin wadankeena galmada qasabka ah dadka qaar waxay ila tahay mid caadi ah dalkeenu ma leh maamul awood u leh ka ilaalinta gabdhaha sharafta badan xadgudubyada galmada ciidamada ammaanka ayaa hadda lagu eedeeyaa abaabulka hawshan inkastoo iyaga la rabay inay ka hortagaan maxkamadna ay horkeenaan dhagarqabayaasha xadgudubka joogtada ah ku haya haweenka gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed Soomaaliya waa uu ka dhici jiray kufsi anshax dara ah iyo saqiir soojin laakiin waxa uu dhici jiray waqtiyo kala fog oo aan isku dhaweyn hadda waa wax laga shakiyo in bil gudaheed 10 kufsi ka badan ay dhacaan bishan oo kaliya waxaa saqiiro kufsi loogu geystay qaar ka mid ah gobolada dalka iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ma ole dadka lagu cabsi gelinaya yaa sawada mashruucan bahalageenka ah isma saarna warku Muqdisho waxay saldhig u tahay in ka badan 100 hay'adood oo NGO ah oo shaqadeedu tahay faafinta kufsiga arrin yar oo sira 28 May 2019 wasiirka wasaaradda haweenka ee Soomaaliya ayaa tagtay caasimadda dalka Norway ee Oslo waxay la kulantay madaxda wadankaasi iyadoo u bandhigtay dardargelinta iyo inay dhaqaale badan ku bixiyaan xeerka jinsiga ee hadda horyaala baarlamaanka Soomaaliya aan ku xasuusiyo mana socotaa 28 bishan oo ku beegan maalinta Isniinta ah in isla wasiiradan ay qadka internetka ee aaladda Zoom-ka ay shir kale ay kala leedahay madaxda arintan iyadu kala shaqeynayso ee beesha caalamka su'aasha qof kasta oo Soomaaliyeed isweydiina waxa ay tahay xiriirka kufsigan si baahay uu la leeyahay xeerka jinsiga ee baarlamaanku carada ka muujiyeen dad badan ayaa qaba in kufsigan tirada badan uu gadaal ka riixayo sidii loo dhaqan gelin lahaa jinsigan ay doonayso wasiirka haweenka ee Soomaaliya waxa xal noqon kara wixii dan u ah dadka maxadan u ah dadka waxaa dan u ah in la joojiyo gabadh falka dadka waxa haddii murankan dheer 3 sano socday meeqa case idinka waxaa tiin wariyaasha meeqa case ma kii ugu dambeeyay argooy kaliya kama hadla meeqa case oo caruur lagu dhibaateeyay oo si farxan loo galay xamdi maxamed faarax 12 September ayaa lagu kufsaday Muqdisho kadibna dabaq ayaa laga soo tuuray 14 September wiil yar ayaa lagu kufsaday degmada Shangaani ee gobolka Banaadir xalay oo ugu dambeysana degmada Kaaraan oo ka tirsan gobolka Banaadir gabar 5 sano jir ah ayaa lagu kufsaday ninkii kufsaday ayaa baxsaday waxay muujinaysaa shacabku inaysan wali baraarugin oo aysan arintan kacdoon midaysan ka sameeynin